xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi ayaa waxa uu markii ugu horeysay uu faahfaahiyay qaabka ay xukuumaddu dhawaan u xidhay iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay xabsiga intii uu ku xidhnaa. Xogayaha ayaa waxa uu cadeeyay in xarigiisu ahaa isku day fashilmay balse aanu noqon doonin mid cabsi geliya oo uu kaga baaqdo halgankiisa mucaaradnimo. Khadar Xuseen Cabdi waxa uu sidoo kale eedo u jeediyay madaxweynaha Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka booliska waxaana hadaladiisii kamid ahaa maanta waxaan isugu keenaynaa inaan ka hadallo oo wax yar oo kooban ka nidhaahno adigu arrimaha xadhigayga iyo waxa ku gadaamanun annagoo aan xadhigayga runtii aad ugu dheeraan doonin waayo wax weyn oo aad looga hadlo isagu gaar ahaan ma ahayn laakiin waxaan doonayaa inaan ka hadallo implicationskiisa waxyaabaha uu leeyahay iyo waxyaabaha uu salka ku hayo marka hore waxaan jecelahay inaan runtii guud ahaan u mahadnaqo shacbiga reer Soomaaliland oo runtii intii aanu xidhnayn cid muxaafida iyo cid mucaaridaba cid kasta oo samaha Soomaaliland doonaysa cid kasta oo doonaysa Soomaaliland inay wanaagsanaato cid kasta oo doonaysa sharcigu inuu shaqeeyo cid kasta oo doonaysa in wadan aynu yeelano wanaagsan oo dimuqraadi runtii way ka xumaatay qof walbana wixii kartidiisa iyo awoodiisa ahaa ay kaga beegnayd waa sameeyay marka dhammaan shacbiga reer Soomaaliland aad baan ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga si gaar ah baan iyagana ugu mahadnaqayaa waxa kale oo runtii u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta xisbiga oo iyaguna dadaal badan u galay maxaan ku raahdaa sidii arrintu ay u dhamaan lahayd waxa kale oo aan u mahadnaqayaa ciidamada booliska oo run ahaantii si fiican oo akhlaaq leh oo dhaqan wanaagsan maxaan ku raahdaa markii ay xidhayeen iyo markii dambe ay naga soo qaadayeen Mandheere ee maxkamadda keenayeenba si fiican oo akhlaaq loo dhaqan wanaagsan runtii noola macaamilayay iyagana waan u mahadnaqayaa asluubta oo iyaguna runtii ciidankiina hayay sagaalka maalmood iyo sagaalka habeenba iyagana runtii waan mahadnaqayaa dawatan hore u yiri hawya cina jeelasha balaayo lagu ma sheegaynin marka runtii deeynani balaayo oo lin waan soo arko balaayo ma taalo iyagana runtii waan u mahadnaqayaa waxa kale oo aan u mahadnaqayaa baasha caalamka runtii oo maxaan ku dhahdaay ilaa shal qaar kamid ah la soo hadlayeen oo arintaasi iyaguna aad iyo aad uga xumaaday qoraal ka soo saaray ka hadlay madaxweynaha kala hadlay iyagana runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ergooyinkii kala duwanaa arintaasi iyaguna isku dayay iyagana runtii waan u mahadnaqayaa kuwa laga yeelay oo la qaabilay kuwa la qaabili waayay kulligood waxay sameeyeen isku day runtii ay doonayeen inay dalkooda iyo dadkooda wax ugu qabtaan iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa qurba joogta reer Soomaaliland waan u mahadnaqayaa marka mahadnaqa laga yimaado anigu waxaan ku dhashay magaaladan Hargeysa waxa ku nool aabahay oo 39 jir ah oo nin weyna noloshayda marnaba suurtagaliga ma Hargeysa iyo magaalo kale oo reer Soomaaliland toona inaan nabadgeliyo xumadeeda ka shaqeeyo inta aan noolahay nabadeedan ka shaqeyn doona wanaageedan ka shaqeyn doona Soomaaliland inay wanaagsanaato ayaan ka shaqeyn doona halkan ku dhashay aan ku barbaaray family-gayga iyo cailadayda iyo asxaabtayda iyo dadka oo dhamay ay ku nool yihiin xumaan uma quurayo marka ninka ku aan ducoonay cid baa nabadgeliyo xuma sameeysay waa dhaqankii uunaynu naqaanay marka la doonayo cid in loo marmarsoodo maxaan ku dhahdaa wixii la doono la iska yiraahdo oo aan sal yar raatoona lahayn marka Hargeysa iyo magaalooyinka kale Soomaaliland waa magaalooyin aan jecelahay nabadooda jecelahay wanaagooda jecelahay horumarkooda jecelahay sababta siyaasadda u soo galayna ay tahay inaan magaalooyinkaasi maxaan ku dhahdaa dadka ku noolba noloshoodu ay maxaan ku dhahdaa wanaagsanaato aragtida siyaasiga iyo waxa siyaasadana keenay aniga iyo walaalkay barkhad iyo inta kale ee xisbiga nugula jirtaaba fantasiya ma waxa weeyaan in la helo Soomaaliland oo nabada in la helo Soomaaliland oo horumarsan in la helo Soomaaliland oo cadaalad oo sinaan iyo cadaalad maxaan ku dhahdaa ay ka jirto in la helo Soomaaliland oo dawlad wanaagu ka jiro oo maxaan ku dhahdaa rule of law iyo kala dambeyn iyo nidaam maxaan ku dhahdaa ay ka jirto in la helo Soomaaliland oo haysta dawlad adeeg u fidisa aan haysanin dawlad caburinaysa aan haysanin dawlad dictatorial aan haysanin dawlad maxaan ku dhahdaa isku filana laakiin tiisu og oo garanaysa ujeedada
ay u jirto inay shacbiga reer Somaliland adeeg ay u fidiso dawladnimadu waxaad moodaa in fahamkeedii lumay laakiin dawladnimadu waa inay dadka adeeg u fidiso biyo siiso caafimaad siiso waxbarasho siiso nolol u abuurto rajo u abuurto taas weeyaan ta aan doonano inaan helo taas weeye ta aan u taaganahay inaan helo taas weeye ta aan wadi doono inaan helo ama hana loo xidho maxaan ku dhahaa ama hana loo dilo ama hana loo dhibaateeyo laakiin waa ta aanan laaxin ka jirahaynin dariiq kasto ay leedahay oo sharcigaana aan maxaan ku dhahdaa u mari doono haddii Ilaahay raahdo sidii taa loo gaari lahaa maxaan ku dhahdaa loo heli lahaa intimidation xarga waxa laga yaabaa inay dadku ujeedooyin kala duwan ay ka leeyihiin laakiin haddii ujeedadu ahayd ha ku istaagaan ninkaasi waa inaan habeenna jirin habeenna seexan xarig kuma istaagayno runta kagama gabanayno xaqiiqada inaanu sheegno kagama gabanayno marka horeba sharci darro maanaan sameynaynin imikana sharci darro ma sameyn doono haddii Ilaahay raahdo insha Allah laakiin tiise waxa xaq u yahay iyo waxa runtu tahay ma kala baqsan doono inaanu maxaan ku raahdaa sheegno isku day fashilmay weeye hadduu isku daygaasi ahaan nimanka xidho oo dabadeetana haga badaan waxa weeyaan waa isku day runtii fashilmay waxa in yar aan doonayna ka taabto marka xarigayagii anoo aan ku dheeraanahaynin barkhad habeennimadii buu hadlay waxa uu ka hadlay fariin gudoomiyuhu uu maxaan ku dhahdaay subaxnimadii jeediyay dad badan oo dawladda ka tirsan markii dambe ay ka hadleen inuu fariintaasi maxaan ku dhahdaay dib u confirm gareeyay inay sideedii tahay maxaan ku dhahdaa oo taageerayaasha xisbigu sidii horeba loogu sheegay xarunta xisbiga ay iman doonaan subaxnimadii 18 bishii maxaan ku dhahdaa maalintaas aan soo dhaafnay dawaab xisbigu xaq u leeyahay oo sharci ah inuu maxaan ku dhahdaa taageerayaashiisa halku doono uu kula kulmo oo uu yeero oo xaruntiisa ugu yeero oo uu kula kulmo barkad markii la xidhay runtii ayaan darooyinka maxaan ku dhahdaa sida ay wuxu dhaceen waa meel aan conditionkeedu fiicnayn baa ayaa lagu xidhay oo saldhigga dhaxa ah oo qolalka dadka dilka geystay loogu talagalay oo daaqad yar oo kaliya tale isaguna asma ayuu leeyahay marka runtii naqaska ayaa ku dhagay alxamdulillah markii dambe meesha laga soo saaray wuu ladnaaday oo wuu caafimaaday laakiin cid dhibaato kale u geysatay oo marka laga yimaado aflagaadooyin iyo cayo maxaan ku dhahdaa waliba haybcay uu ku jiray ay tahayna waxyaabaha ay tahay inuu shacbiga reer Somaliland ay tahay inuu ka dhiidhino aan ka xanaaqno runtii lagu sameeyay inta marka laga yimaado dhibaato kale oo runtii barkhad ku dhacday ma jirto inta wixii ka dambeeyayna de waan wada joognay oo dhibaato ma runtii aniga isaga toona nagu dhacay aniga marka barkhad baan u imi inaan maxaan ku dhahdaa soo salaam taariikhda ma dhicin de qof xidhan soo booqday oo maxaan ku dhahdaa isagana la yiraahdo adigana waa lagu baahnaa kaalay mala dawladda ay baahatay maxaa loo dhan jiray bari dhaweyto sheeko kaftaro jiri jirtay baa jiray laakiin waxa doonayo siday exactly u dhacday aan waxna ku darin waxna ka reebin shacbiga u sheegay dadka shacbiga judgment-ka aan u daayay markan barkhad doonayna inaan u gallo kadinka hore saldhigga booliska taliyaha booliska ayaa joogay xildhibaan waabeeye iyo niman kale oo xisbiga ahba ayaa nala socday waxaan doonay inaan taliyaha la hadlo aniga taliyaha aqoon shakhsi oo isu leeyna ma jirto xataa imka duu halkan soo taagay wajigiisa deena kamaradiisa sawirka arkay mooyaane si kale ma runtii ma u garanay aqoon halkaasay noo kala joogtaa isagana sidaas oo kale ayaan qiyaasayaa inuu kamaradiga arkay mooy si live maanan isu horimanin marka bal baa ka galay maxaan ku dhahdaa anoo casual u dress garaysan ayuu arkay kani ma khadar baabu dabadeetana yiri anoo aan sooba gaadhin marka anigu de ma garanayo ma perception horiga haystay isagoo aad runtii u xanaaqsan ayaa waxa uu yiri microphone-kii baa xanaaqay ma ayaa waxa uu yiri adiga anaaba doonayay inaan ku xidho markii loo confirm gareeyna khadar ahay anidaha khadar baan ahay wuxuu adiga anaaba ku doonayay inaan ku xidho maxaan ku dhahdaa hadalla aanan jeclayna saxaafadda ka sheego runtii aflagaada ah oo caayana uu igu yiri
runtii de miisaanka qofku markuu xilka inta leeg hayo aad uga hooseeya halkii laga filayay inuu hadallo noocaas runtii ku hadlo ayuu maxaan ku dhahday yiri aniga marka fahamkeygii way uu xidhay baan deetana isweydiiyay markii dambe aan kaligay noqdo marka fahamkeygii baan idin sheegay laakiin ilaahay baa iga ogday wixii xidhay way isagu anaa ku doonayo ku xidhay mooyee waxa saan ku xidhay ay moodan marka fahamkeygii baan dib u reflect gareeyay oo maxaan ku dhahdaa aan idhi way tolo maxaa dhacay way dambi kuma jirin da sharcigu wuxuu dhigaya waan garanaynaa kulligii waan wada garanaysaan qof muwaadin ah darajadu doonaha lahaadee oo aan dambi gacanta kula jirin oo aan waaran loo haynin in janankii booliiska taliyihii booliisku raada aniga ku doonay inaan ku xidho oo doonistaasi ay sii jirtay de maxaan ku dhahday macna ay leedahay maan de cid garanaysaa ma jirto isagiina muu sharaxin dambi kale uu yahaystay ma jiro maalintaana xataa hadduu hadal iyo wax ku soo marmarsoon lahaa ma hadal markaas ana dib u fakiray oo isweydiiyay marka fahamkeygii baan doonayaa in idinla wadaago waxa run ahaantii waxa jirta dadka dawladaha dictatorka kala taliska markay abuurmaan ay jiraan waxa jira wax la yiraahdo adduunka dictatorka ugu weyn ee casrigan dambe soo maray laga tusaale qaataa marka dadka wax daraasaynaya ay ka hadlayaan waa Hitler weey marka book baa jira la yiraahdo maxaan ku dhahdaa the third regiment marka wuxuu ka sheekayaa dadkii Hitler ka hoos shaqeyn jiray Hitler kama sheekeeyo dadkii Hitler ka hoos shaqeyn jiray marka wuxuu yiraahdaa waxa abuurantay waxa la yiraahdo the myth of Hitler oo macnaheedu yahay doonista Hitler marka wuxuu yiraahdaa markii sharcigu ma ogtahay ma kala yaqaano qof baa wanaagsan iyo qof baa xun sharcigu de waa sharcigu laakiin marka aan sharci lagu dhaqmaynin ee aan sharcigii maxaan ku dhahdaa qofku ilaanin aan la xidhin uma baahna sharaxa in la xidhay iyo habka la xidhay in sharci daraahay qofka doodaya ma jiro markii maxkamadda la gelin booliisku uu qirtay wuxuu duruuftun baa dee markii nagu kaliftay laakiin tiisa marka aan sharciga lagu dhaqmaynin dadka dictatorska ah ka hoos shaqeeya waxay u fakaraan waxa la yiraahdo maxaa raali gelinaya muxuu ku farxaya muxuu hebel jeclaysanaya muxuu hebel doonaya markaan waxa ma nisri taliyuhu waan cusbaa the myth of Hitler sidii oo kale ayaa wuxuu u fahmay oo u turjunto u akhristay xarigaygu inay madaxweynaha raali gelinayso xarigayga inuu madaxweynuhu ku farxayo xarigayga inuu madaxweynuhu doonayo ujeedooyinka maxaan ku dhahdaa marka madaxweynuhu ku raali geli oo ka farxi inay ahayd anigu sidaas un baan run ahaantii u fahmay markii dambe deeleen madaxweynihii warkii uu helay in la xidhay maxaan ku dhahdaa inuu soo deeynin halkiiba ku jiray markii dambena waxaan idhi dotiskii baa isugu ka xidhmayo yani waxa weeyaan waanu la helo uu gartay oo uu doonay inuu ku raali geliyo waanu ku raali geliyay oo runtii sidaas ahayd aniga marka runtii inta waxaan ahayn maalinta hadalna namu dhaxmarin hadal kalena run ahaantiina mu dhaxmarin imikana grievances ma jirto caada ma jirto xanaaq ma jiro laakiin tiisade maxaan ku dhahdaa de hadal baa la isooranaya taliyaan waxaan oran lahaa taliyaha intii iga baxday markii maxaan ku dhahdaa la magacaabay social media aad baa looga hadalla aad u wanaagsan baa laga hadlay waxyaabaha laga hadlay laga sheegay marka waxa kamid ah tabliiq inuu nin tabliiq ahaan jiray tabliiqu tayaaradii islaamiga ah ee soo jiray qaarba waxbay ku wanaagsanayeen itixaadkii waxba ku fiicnaa ihtisaamku waxba ku fiicnaa qolba waxbay ku wanaagsanayeen tabliiqu waxay ku wanaagsanayeen wax la dhahay yaqiin dadka waxay dhisaan yaqiintooda dhisaan inuu qofku aamino qadarka aamino ayay maxaan ku dhahdaa marka de malaha odaygu waa ilaabay waxaan kula talin lahayn bal duruustii tabliiqa ku noqdo oo akhristo aayad quraan oo aad u cajiib ah jirta oo suuratu imraan ku jirta aayada maxaan ku dhahdaa 25aad weey aayadaasi waxay tiraahdaa qul illahumma maalikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al khayr kullu aayada macnaheedu waxa weey ilaahay baa mulkiga bixiya marka taliya dabagala waxaan u laharto ilaahay baa qadareyna taliya noqoto ilaahay baana qadaray inta taliyaha ahaanas ina dulmi geysato
inaad aniga xidho inaad madaxda xisbiyada xidho in cid gaar ah taargad garayso daba gasho kuma sii haysan karas intii ilaahay ku qoray in baad joogaysaa intii ilaahay ku qoray ayuun baad joogaysaa laakiin tiisa maxaad ka tagaysaa inaad isweydiisaa muhiim maxay ayaad ka tagaysaa inaad isweydiisaa muhiim maanta booliiskeenu duruuf adag buu ku noolyo ka shaqo maxaan ku dhahday oo ku shaqeeya askari $100 wax ka yar qaata caruur leh maxaan ku dhahday nolol adag ku jira dhaga nugul oo fiican ku dhageysanaya ayaad maxaan ku dhahday kugu ag xeeran oo ilaahay mas'uul oo adiga kaaga dhigay kuwa noloshooda inaad wanaajiso u doodo oo wuxuu doonto mushaharka in loo kordhiyo u doonto noloshooda in kor loo qaado aad u doonto taas baad sharaf iyo magac iyo maxaan ku dhahdaa karaamo ku helaysaa oo maxaan ku dhahdaa lagaaga lagugu xasuusan doona waxa kale oo iyaduna run ahaantii muhiim ah booliisku reform buu booliiskeenu u baahan yahay in isbedel lagu sameeyo u baahan yahay saldhigyadeenu waxa weeyaan kulligiin waa ka wada war haysaano yani duruufta iyo sida yihiin meel loo aanu qof ku noolaan karin inay tahay runtii way aad bay u caddahay waxa jira inaanay nadaafadoodu fiicnayn in xaaladoodu aad u xun tahay in maxaan ku dhahdaa qofku marka la soo xidho ee la bahaleeyo waxa condition de meelaha sharcigu ka jiraan aanu ka hadlaya markan ma ka hadlaayo meel aanu sharci ka jirin haddaynu ka sheekeynayno waa sheeko kale waxa kow ka ah in qofkan la ogaado noloshiisa qofku ma xanuunsanaya caafimaadkiisu muxuu yahay muxuu leeyahay markaasaad ka fikirto halkeed ku xidhaysaa qofka meel caafimaadkiisa iyo noloshiisii ay ku sii jiri karto inaad maxaan ku dhahdaa aad ku xidho mujaahidila meerayso ayaa ii sheegay inuu xanuun lahaa maxaan ku dhahdaa aan xanuunkiisii loo tixgelin aan la weydiinin waxa noocaas waxyaabaha dulmigu ku biqla ee ku maxaan ku dhahdaa ku dhaco cidina dulmi meel kuma gaadho cidina darajo kuma hesho taariikhda ma dhicin qof intuu dad dulmay darajo iyo magac maxaan ku dhahdaa ku helay marka hartu taa kow inuu wax ka qabto magacna uu ku helayaa sharafna uu ku helayaa laakiin tiisa sharaf iyo magac kuma helayo inuu midka madaxweynaha uu ku shaqeeyo ee inuu sharciga ku shaqeeyo ayuu maxaan ku dhahdaa sharaf ku helayaa arrinta labaad ee maanta aan u baahanay waxa weeyaan in laga fikiro booliiskeenu sidee buu ula jaan qaadi karaa standardska caalamiga ah xuquuqul insaanka good governance-ka dawlad wanaagga dimuqraadiyadda nidaamkan aynu qaadanay haddaanu munaafaqnimo iyo been iyo hadal inaga ahayn in laga fikiro sidee buu ula shaqeyn karayaa ula jaan qaadi karayaa ee qofka booliisku u dhaqankii iyo valueskii iyo akhlaaqdii looga baahnaa qof booliis uu yeelan lahaa maanta taasi ciday dul saaran tahay inuu ka fikiro oo ka shaqeeya run ahaantii maxaan ku dhahdaa taliyaha weey marka taliyaha waxaan kula talin lahaa annagu kuma cadaysnin facalta ma facalta waan ku cafinay raalli baan nahay grievances ma jirto this is politics siyaasadda haddii uma naanimanin maaha cake maaha siyaasaddu waa challenge-keedana diyaar baan run ahaantii aan u nahay laakiin adiga magacaaga iyo sharaftaadu kuma jirto in lagu yidhaahdo cid gaara daba soco soo xidhxidh amaba aad adigu u fahamto in sidaa laguu soo diray waxaa laguu soo diray inaad qarankan booliiskiisa hagaajiso ka dhigto institution shaqaynayo la jaan qaadi kara institutionada booliiska ee maxaan ku dhahdaa caalamiga marka isaga intaa fariintaas baan runtii ku dhaafaya waxa kale oo yar ka odhanaya jeelka runtiina looma ogolayn dabcan dad badan la sheekeysano laakiin diisa aniga background-kaygu waa research dabadeetana waxa iga muuqatay fursad research baa iga muuqatay run ahaantii intii aan joognay marka inkastoo aadna looga ilaaliyey waxaan ugu ag xidhnaa dhalinyaro 42 runtii gaadhaysa oo ah dhalinyarada laga soo maxaan ku dhahdaa laga soo kaxeeyay amaba dambiyada mobileka habeenkii meelaha istaaga amaba dambiyadan maxaan ku dhahaa dhaawac laba qof oo isdilay oo nabar qof u geystay iyo midhad la yiri waxay ahaayeen maxaan ku dhahdaa kufsi inay ahaayeen la sheegay dhalinyaradaasi waa dhalinyaro
markan qaarkood warwareystay ay iga baxday saddex arrimood oo runtii aad iyo aad u muhiim ah inaynu fahamno kow social problemska mujtamaceena maanta haysta iyo faqriga ka jira iyo xiriirka faqrigaas iyo dambiga ka dhaxeeya booliisku waxyaabaha u baahan tahay inuu baaro ay ka mid tahay ma ogtahay booliisku shaqooyinka ay tahay inuu qabto maxaa crime-ka keena inuu baaro daraaseeyo fahmo dabadeetana sidii uu crime-ka uga hortagi lahaa u baahlay dhalinyaradaas crime-kooda maxaan ku dhahdaa boqolkiiba 80 waxa aasaas u ahaa rajo xumo iyo faqri marka hore ay ku soo koreen ku soo barbaareen waa caruur ama iyaga oo yar yar aabahoodii hooyadood kala tageen ama maxaan ku dhahdaa agoona oo aan waalid lahayn ama maxaan ku dhahdaa aan haysanin wixii ay iskuul ku tagi lahaayeen ay ku noolaan lahaayeen marka caruurta yar yar maxaan ku dhahay duruuf runtii aan wanaagsanayn bay ay ku noolii subaxdii xabad yar oo 2 midho yar oo roodhiya oo qalalan ayay cunaan maxaan ku dhahdaa daraasaad iyo jeelasha waxa loo sameeyaa recreation baa loogu talagalaa qofku in isagoo soo bedelo wax soo bartay oo nolol cusub haysta oo maxaan ku dhahdaa soo baxo oo soo noqdo dhalinyaro aan hopeless oo aan waxba qabanaynin oo halka ku jirto oo xidhan oo mustaqbalkeena iyo dhalinyaradeenniya ayaa run ahaantii meesha ku jirtay inay yaro markaa 17 jir baan maalin la sheekaystay intan anoo daaqada taagan meesha maray baan u yeedhay kaale baan ku yiri waan wareysto magaciisa weydiyo magaciisa buu sheego daadiisa weydiyo daadiisa ayuu ii sheegay dambigu galay baan weydiyo dambigiibu ii sheegay waxaan ku yiri iskuulka halkeed kaga tagto wuxuu ku yiri standard 8 baan kaga tagay waxaan ku yiri maxaad iskuulka uga tagtay and this is what he told me taasana aad iyo aad u muhiim wuxuu ku yiri saddex caruur oo iga waaweyn oo walaalahayn ayaa jaamacad saddexdooduba dhamaystay saddexdooduba gurigii bay ku soo noqdeen saddexdooduba way shaqo beeleen saddexdooduba halkii bay fadhiyeen de marka iskuul waxaan ugu sii jiraan garan waayay buu farsamada gacantaan isri baro farsamo gacan oo wanaagsan baan waayay geerash baan galay dad iga waaweyn oo maxaan ku dhahdaa ayaan gacanta uga galay dabadeetana si yar oo fudud baan runtii markii dambe aan dambi u galay oo dhaawac ayaan geystay storyga inaan ka yari kumanaan iyo 10 kun oo caruurta dhalinyarada ama Hargeysa joogta ama Burco ama Berbera ama Gabiley ama Boorama ay run ahaantii haysataa waana rajo la'aan weey oo maxaan ku dhahdaa dhalinyarada haysataa waa dadkii laga filayay maanta madaxweynuhu inuu rajadooda xambaaro waa dadkii laga filayay maanta madaxweynuhu inuu mustaqbal iyo nolol u sameeyo waa dadkii laga filayay maanta madaxweynuhu inuu maxaan ku dhahdaa ku warwaro oo ka fakaro sidoo nolol ugu sameyn lahaa laakiin dad madaxweyne garnaqsanay oo halkan taagan oo halkan fadhiya oo qofkii yimaadaba la garnaqsanaya oo maxaan ku raay gar ku mashquulay kuwaas noloshooda ma xasuusna kuwaas noloshooda ma dareemayo laakiin kiisa shacbiga reer Soomaaliland iyo dadka kale ee siyaasadda ku jira iyo xisbiyada ayay u taalaa dadka inay ka fakaraan sidii nolol iyo mustaqbal loogu sameyn lahaa marka baaqban ganacsatada u diraya waxa weeye war jeelasha duruufo badan baa ka jira dad waxa jira deyma lagu leeyahay dad waxa jira maxaan ku dhahdaa oo aan iska bixin karin dad waxa jira iyaga iyo caruurtoodii kala lumeen oo kala bayhoofeen oo dhibaato haysato war zakada ku baxaysa war taga oo ka war doona oo maxaan ku dhahdaa sadaqaadkiina geysta oo cidii aad kurba ka furan kartaan ee kurba aad kaga soo furan kartaan ee aad ka soo deyn kartaan maxaan ku dhahdaa ka soo daaya waayo dawladii way maxaan ku dhahdaa maanta wax kale ay ku mashquulsan tahay oo aan waxaas ahayn waxaan doonayaa inaan ku soo ururiyo madaxweynaha fariin aan u diro madaxweynaha waxa weeyaan kursi karaamada oo integrity leh baa ayaa ilaahay gacanta u galiyay kursigaasi waxa weeyaan qiimo weyn ayuu maxaan ku dhahdaa leeyahay waa inuu ka fakaro uu ka tagayaa kursiga maalinta doonaba ha noqoto waxa ka hadhay wixii uu intaasi u joogay hadduu dad dulmay way ka hadhaysaa waa laga sheekayn doonaa hadduu cid dhibaato u geystay waa laga sheekayn doonaa haddaan waxba qaban u fadhiidahay iska fadhiyay waa laga sheekayn doonaa waxaan xaq u lahayn haddii uu qaatay waa laga sheekayn doonaa sheekadaas ayuunbaa haddii ilaahay yiraahdo insha Allah ka hadhays maanta fursad buu haystaa sheekada inuu qoro oo sheeko fiican ka dhigo maanta fursad buu haystaa inuu ka hadlo oo maxaan ku dhahdaa uu legacy iyo wax wanaagsan uu maxaan ku dhahdaa ka tago maanta fursad buu haystaa
ummadda reer Somaliland nolol cusub iyo rajo cusub maxaan ku dhahday ugu abuuri karo maanta fursad buu haystaa oo dadka isugu keeni karo fursadaasi haddii uu beerdareeyo adduunyada taariikhda lama arag operation guuleysta qofku waa jahli iyo muxamagaradnimo in dariiqiyo hore oo lagu soo fashalay dariiqiyo hore oo guul darro ah inaad ku noqnoqoto oo adiguna ku noqnoqoto maanta guushu kuma jirto inaad dadka xidhxidho maanta guushu kuma jirto inaad tiraahdo hodheelada ha ku shirina بريء ولا ليه بن حسوستا مدحوينها أو كقبضين يا برعو حزب جودني دريو كدريا حزب جودني حمر بال لوجا صعبة تمي حفلة بينه هو اللي سميه مرجع سوي حليه هي اللحلة هدوه قال لها اللحت كل صاقع لها لحلة هدوه قال لها اللحت كل صاقع لها أنا وحن محن كل هذا أرتو اللحلة مركاد ده ونولا إن حمر لقت تجو قرشها أسنا بموهين marka lixla taalixudka kulamo soo kaceen laakiin lixla wuxuu lixudka la soo kicila haduu og yahay jeelkii uu jabsaday ee uu rag ka jabsaday ee xornimada maxaan ku raahdaa loogu hayay sida sharci darrada ah ee operationka loogu hayay haduu wali shaqadii jeelka hayo oo wali dadka sameynayana dadkii isaga maalintii la joogay yihiin haduu taa ogaan lahaa ayuu lixudka la soo kici lahaa marka odayaashan lixudka yaanu maxaan ku raahdaa in ka soo kicinin hadii uu dagaalamay oo wuxuu u dagaalamay ay dhab ka ahayd inuu dadkani helo horumar iyo dawladnimo iyo xornimo maanta fursadii ba gacanta ugu jirta hadii ka ahayd wax kalena oo aniga sida ii muuqata ay sida tahay ha iska wato halku deer waqtigu dhigo ka daraw magac bixin way iska soo maxaan ku raahdaa way iska soo bixi doontaa annaga 17 bisha markiina la xiray dimuqraadiyadda Soomaaliland naxash bay saareed laakiin tiisi waxaan siri malaa bahasha foolxumadeeda la idinka xirayo waxaan soo baxnay tiyo la aasay oo maxaan ku raahdaa lixudka la dhigay shalay waa la socoteen beesha caalamka waa markii koowaad ee Somaliland strong statement noocaas oo kala ah hadii luqadda international relationska nimanka dawladda maanta jooga ay fahmayaan statement sida uu strong ah uu ka soo baxo intii ay Somaliland maxaan ku raahdaa ay jirtay maanta maalin beesha caalamka uga baahi badanahay ma jirto maanta maalin maxaan ku isma bixinayno wadan yar oo aan la aqoonsanayno nahay duruufo adag ay maxaan ku raahdaa inagu xeeran yihiin dalkani maxaan ku raahdaa de waa kaftan iyo ceeb baarlamaan 17 sano maxaan ku raahdaa fadhiya oo aan haddana aanay muuqanin xataa sidii ay doorashadiisii ay ku iman lahayd marka de laba option baa u yaalo inay iska bareeraan waxaan oo dhanba iska laabaan marka de shacbigu wixii ay yeelayaan ha yeelaan oo xisbiyada iska laabaan oo maxaan ku raahdaa dimuqraadiyadda iska laabaan oo de baarlamaanka laftiisana haddaanu macno badan sameeyeen inay iska laabaan iyagu dabadeetana ay haragoodii caadiga ahaa la soo baxaan annagu xisbi ahaan iyo ashxaas ahaan guul darro ma joogno 2 sanadood oo anigu imika iyo barkhad iyo raggeela midii ay xisbiga ay joogeen Muuse iyo dadkii way isbareen Muuse iyo dadkii way isbareen kalarkii rasmiga ahaa waa ka soo baxay la maray hoteelada hal xidho faylal kalena way soo socdaan de marka shacbiga reer Somaliland inay tashtaan oo ay isweydiiyaan ayay u taalaa waxaan ku soo gabagabeynayaa fariin aan u dirayo dadkii Muuse doortay waxaan hubaa dadkaasi dad wanaagsan bay ahaayeen nolol bay doonayeen rajay doonayeen dawladnimo bay doonayeen haddii wixii ay doonayeen waxa maanta socdo yahay iyo sidaynu maanta nahay haddii wixii ay doonayeen yihiin madaxweynada taageeradii la sii garab istaagaan laakiin haddii wixii ay doonayeen aanu ahayn oo aanu wadin oo ku ballan furay de waxa laga doonayaa badbaadada Somaliland maanta iyaga dusha u saaran tahay jinni ninkii keena saara marka waxa laga doonayaa inay gabashada iska daayaan oo ay banaanka u soo baxaan dad badan oo taageerayaashii kulmiyaha hoos bay u faqaan hoos bay u hadlaan wallahi waa run waan ognahay annaga nala hadlaan annaga noo yimaadaan way noo sheekeeyaan dhibaatada waddanka ka jirtay ka sheegaan laakiin waa inay bareeraan ay ragnimo yeeshaan kor u hadlaan oo mushkiladda jirta waxaan la hadlayaa taageerayaasha
maxaan ku dhahdaa dadkii doortay madaxweynaha inay mushkiladda waddanka ka jirta taariikhda la xisaabtami doonte ay ka hadlaan banaanka u soo baxaan. Cabdiraxiin Muuli Ismaaciil, shabakadda wararka Ilays News, magaalada Hargeysa.